haddii aad rabto slideska presentationka inaad video ahaan u save garayso adigoo adeegsanaya MS PowerPoint waxaad tagaysaa menuga kore tabkan ay file ku qoran tahay kadibna kaliya ayaad ku siinaysaa kadib waxaad dooranaysaa optionkan export ay ku qoran tahay waxa ku soo baxaya optiono dhowr ah waxaad ka dooranaysaa optionka ay create video ku qoran tahay create video markaad doorato drop down kan kore ayaad ka dooranaysaa resolutionka videoga sida caadiga ah full HD ayuu ku joogaa haddii aad rabto waad ka bedelan kartaa laakiin aniga full HD ayaan ku dhaafaya resolutionka aad rabto markaad doorato waxa sidoo kale halkaan ku arkaysaa input yar oo aad ku qorayso slide kasta inta second uu ku jiraayo sida caadiga ah 5 second ayaa ku qoran haddii aad rabto waad ka yareyn kartaa ama waad ka badin kartaa kadib waxaad leedahay ama aad kali ku siinaysaa create video kadib waxa ku soo kacaya window aad ka dooranayso halka aad ku save garaysanayso videoga kadibna waxaad leedahay save markaad tiraahdo slide-ka ayuu video ahaan kugu save garaynayaa